بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم saddex rag baa kugu dila saddexna dumar baa kugu dila saddex rag baa kugu dilo dhalad ha ahaado dhudhun ha lahaado hana dhimiro gaabnaado dhalad ha ahaado nin meeshii u dhashay oo waalidkiis walaalkii saaxiibkii wixii oo dhan ay meeshii degan yihiin ha ahaado adiguna meel kale aad ka timid dhudhun ha ahaado nin awood iyo xoog leh oo haddaad ismaagtaan aanad isaga aadino yacni awood aada ku dhammayn hana dhimiro gaabnaado caqligiisu kuma filna haddii uu ku maago ee hadda uu ku basareeyo ku garaaco waxaa laga yaabaa inuusan caqligiisu siin ninkan dhibaataad u geysatay iska daa wuu kugu soo laalaabanayaa saddexda rag baa kugu dila saddex dumar baa kugu dila dhaban ha lahaato ha dhaqan xumaato hana dhaqaaqi ogaato dhaban ha lahaato waa gabadh aad u qurux badan qurux baad ku dooratay hadhowtii markii aad haleeshay oo laga yaabay inaad guursatay qof aan dhaqan wanaagsanayn weeye dumarku way kugu dilaan haddaad isku dhacdaanna waa qof dhaqaaqi ogoo way iska tegaysaa oo yacni dad waxaa jira markii dhibaato yacni dhexdeedu ay ka timaado xalka suga laakiin inaysan ahayn bay kugu dishaa saddexdaana dumarkaa kugu dila saddex bay leeyihiin aadamuhu xurmuu leeyahay farasku xakamuu leeyahay hadalkuna xubin buu leeyahay aadanuhu xurmuu leeyahay aadamuhu waxa uu jecel yahay xurmada ilaahay uu siiyey in lagula dhaqmo in la wanaajiyo uu jecel yahay haddii aad wanaajiso adigana wuu ku wanaajinayaa xurmuu leeyahay qofka bini aadamka xurmadiisa si farasku xakamuu leeyahay xakamuhu waxa weeye waa xarigan lagu xakameeyo haddii la barayo inuu yacni loo diyaariyo faraskani inuu noqdo faras la raaci karo ama la fuuli karo in loo diyaariyo xakamo waxaa jira lagu xiro haddii la raranayo sidoo kale faraskuna xakamuu leeyahay hadalkuna xubin buu leeyahay hadalku waxaa jira xubin uu leeyahay xubintaasi waxa weeye haddii madal laga hadlayo ama si uun loo hadlayo waxaa jira dad haleeli og qodobka loo baahan yahay iyo dad aan heli ogeyn oo hadalka inta hadba meel ka mara isku qasa markasta waxaad isku daydaa meesha uu uga habboon yahay in laga hadlo hadalku inaad ka qabsato xubintiisana aad haleesho saddexdaas bay leedahay waxaa la yidhi saddex lama arag bari ciya ah bakaylo tallaabsanaya iyo baqal lamaana bari ciyi ah lama aragoo ciyi waxaa la yidhaah marka reerkani uu neef qasho waxaa jira dadka dariska ah in uu u geeyo qayb ka mida hilibkii ciyi hilibka noocaasaha la yidhaah haddii ka soo qaad reerkani uu neef idaa qasho lagama yaabo barida inuu u geeyo reerka kale ee baridan isaga ayaa reerkaasi inta badan shiisha oo xaafadda ma dhaafto waxaa la yidhi marka bari ciyi ah lama arag bakaylo tallaabsanaya lama arag bakayluhu had iyo jeer mar allaala markaad aragtaba ama wuu fadhiyaa ama wuu boodboodayaa bakaylo tallaabsanayana lama arag baqal lamaanana lama arag baqashu waxa weeye waxaa iska dhala dameerka iyo geenyada waxna ma dhalo in maaragtaa loo dhalana ma sugo sidaa awgeed ayaan loo arag baqal lamaan ah saddexdaana lama arag waxaan rajaynayaa inaad wax ka fahantay mahadsanid